السلام عليكم أصحابتي دقالي سو دواد عوضة فرح سنة هاوينكي لاقي ماشان كلي أنزوف ليست أنا قاعد قصدي خشوع أو جرام بندين لكن مركي بريرة قربكي تاجنتها وحواي وحمقلي جري هسه ورا لكن فرحة مير بو مانكي نقلي مساء مقانة ما دبال دقا ورا فنان والله ولسكدي هو هاي بريرة عد كذا دي لما قلوا أمقتك كجرتو الحمد لله أسك فرحة يا إلهي ديستو dad badan ay iiga roon tahay een iiga dhaan tahay ya laanteed waxba ma ahaleen aan youtube-ka mar hore albaabadiisa isku dhiflaan baande waxaan argoosin bariirle waa moodino ana wax leen soo duuwaan baande laakiin qofka maasha Allah ilaahay khayr siiye wallahi bilaa awalkeed aan gudi karin waa bariira khayr Allah ku siiyaan leeyahay mar walbo marka maanta horta soo dhawaada asxaabteed qaaliga videoga la gareeya share gareeya comment yar qurux badan oo dhaafa maanta waxaan rabaa inaan su'aal aan weydiiyo Bariiro markuu wareys iida soo dhaweynaa Bariiro su'aasha waxa la weydiiyay waa fakadbo maande laakiin waa weydiinaa taas aniga u soo fadhiismo su'aasha aan weydiiyo Bariiro waa dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta nalka waa idin salaamay salaanka ilaabe maanta waxaan youtube haday soo fadhiisan lahayn aniga inteen jooga meel ka dheer aan jooga hadaan isku xaafad ahaan lahayn oo jukay lahaa oo aan soo riixi lahaa laakiin maxal dhahay ii sheeg ii laftirkeeda xoogeeda iyo teemkeeda iyo enerjigeeda idin siinaysaa subscribe-ka iyo like-ta iyo share-kana daha baqiilinina idinkana faraha wax ka qabtiina bismillaah faraha baranbara idinkaga bajina saa ugu yaacdaan marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal okay horta su'aashaantii wax kale ma ku weydiinooyay dadkan ay si kale ii fahmin waxaan ku weydiinaa waxa tahay maalmahaantii waxa aad iyo aad ugu soo badatay baraha bulshada YouTube Facebook meel kasta aan qato nimanka Soomaalida oo ah aabiyaasheena walaalaheena ilmahaaya wax kasta noo yiisax marka ani maadaama ka hadli karo kuwa wadanka joogo adna aad ka hadli kartid kuwa qurbaha joogan waxa maqlay in la sheego maalmahaantii nimanka Soomaalida macnaha xagga nadaafada ku liita camal kuwa joogan America nimanka gaalada iyo waxa ra nimanka Soomaalida inaanu sheegtid farqi u dhaxeeyo oo xagga ku nool gaalada sida macna qaabka isku carfiyaan maadaama la leeyahay nimanka Soomaalida isheeg milibistaan اسمع عرفيا دي انجرتي باكو يعدي انا ايوا عيال ايقار كلو بدن horta على injir nin Soomaaliyeed injir gashay injirta ma madaxa ka galaysa كوريوس اكشدنتاي injirta كوريوس اكشدنتاي de هذا ناقي البحين بهل ناق انجر ما laga galay nimanka maxadar halka ay gudmin sasamare horta aan ku sheego su'aala isoo weydiisay waa naxnahay laakiin aad ugu faraxsanahay su'aashan inaan ka jawaabo koode horta qaybta yani ragga Soomaaliya joogo ma uraan aad dhahday miya way cafaya miya ana ka hadli karleen wax ma gashay ragga Soomaaliya joogo yani injirtaas iyo يعني أورك لقى شيء جاي إيو أنا قبل أركي social media لقى عين الله كلها إنجرا كجشة هوس إنجرا كجشة بكتيريا كجشة وحليل الدلدلة لكن حاجة وان سكام سبحان الله منطقة إنك صور رجع أنا عن جعله أرمها صو كلا يعني رجع مركي تمادو كلا عن دفاع كرو لكن واسكام ما دام أديك ما أنت سؤال أيوة دي سمركا واحد جت أمرك كل شيء جا horta ragga Soomaaliyeed adduunyada Ilaahay ragga caraf badan adduunka ma jiro aniga American oo yar imid intaan kula soo ogaaday noloshayda inta badan American jooga inta aan America joogay iyo intaan America joogay ayaa badan Soomaalian now marka hadii aan ka hadlo America iyo Europe waa same culture waa same religion waa adiga dhaqankoodii iyo diintoodii waa isku meeshii
dadka xoogaa xitaa markay isku diin yihiin xoogaa way isu soo shaabahan meelo iska soo shaabahan xoogaana meelo iska soo shaabihi karaan laakiin Yurubiyaanka iyo America anigoona caynaynin oo maaragtay wadan la igu soo dhaweeyay anoo yar wax bartay aluu xiraya yani runta anigoo ka hadlaaya muujeeda anoo runta ka hadlaayo yaa serious aan hadlaya anaga horta dhaqan ahaan wiilasha horta xagga dhigba dhaqan ahaan aasa Soomaaliyan ka hadlaa muslim ahaan ma ka hadlaa Soomaali waxaan dhaqan u leenahay in ninka ragga uu maartay isnadiifiyo maxal dhaqan ahaan waxaan u leenahay ninka inuu is-udgiyo diin ahaanteena diintan islaamku waxay leedahay nadaafada ma ubanaysa amarka dhaxgal adag ku haysteen ragga Soomaalida ama dhahnay ama dumar ama dhaqanka Soomaalida u yaala ay dhaqanka u yaala Carbaha oo kale Suudaaniis inay sir shabahan hatta gabadha Carabta waxa argaysa sida Soomaalida amal u dhaqmayso isku carfinayso oo si u shidinayso marka waa isku dhowna mas'alayda dadkaas bas dad isku dhowna iyaga ka arkaan wax yar laakiin iyaga markay qurbaha ay yimaadeen anaga ka nadaafad badan qurbaha markay yimaadeen anaga ka nadaafad badan ha qurbaha markay yimaadeen anaga ka nadaafad badan waxaan oga nadaafad badannahay waxay tahay aniga iskuulkeen la aaday waxaan la aaday shaqadeen la aaday waxoo dhan waan ogsoonahay waxa meesha jiro dhan ayaan ogsoonahay waan u soo noqdo marka diinteena waxay leedahay nadaafadu waa iimaanka nuskiisa iimaankan dhan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haaf waaba nadaafaday ku salaysan tahay marka soo dukanaysid waa inaad cadaysataa waa inaad maaragtay maxal dhahay aad is carfisaa annaga waa laga yaabaa in geedka kilkilaha la marsado inkastoo hadda ay dadkii barteen boqolkii hal ma yaqaanaan dhihi kara laakiin berigii hore laakiin hadda boqolkii hal ma yaqaano boqolkii 99 way yaqaanaan geedka kilkilaha in la marsado okay waxaa jirta markaan aan ku idin sheegaa ragga Soomaaliyeed shanta waqti oo ay dukanayaan waa ragga rumaysto waa ragga maanta markay ay shaqeynayaan markay xafiis ay joogaan markay iskuul aadaan ragga inay baxaan musqulaha markay tagaan xaarka iyo kaadida iska dhaqo adduunkan aad u jeedid xaarka iyo kaadida iskama dhaqaan xaarka kaadida iskama dhaqaan ani iskuulaan dhiganay shaqaan aadi jiray Soomaalida waa la soo dacweyn jiray waxa lagu soo dacweyn jiray waxa la dhihi jiray Soomaalida way ay maxal dhaha musqusha biyaha ay ugu shubtaa wala xataa waxaan arkay dhowr gabdhood oo Algerian iyo Moroccan oo markii markino la dhahayo way biyaha loogu shubay yani iyaga iska dhigayo dad aan musqusha biyo u qaadan mana u qaataan sida run ahaantii marka iyaga xoogaa markino anaga naga yaqyaqsiyoonayo ay waxay leeyihiin anaga manihin dadka musqulaha biyaha ku shubo aniga marka mar oo waxaa jirtay iskuul aniga aan dhiganayay oo shahaadada high schoolka markaas aan diyaarinayay oo luqadayda markaas aan u baahnayn ruux inuu ii turjumaano ayaa meeting la yeeshay state-ka city-ga ayaa wuxuu bixiyaa dadka iskuulka lacagta ka dhiibo because anaga firiya iskuulka ku aadnaa okay iskuulka markaan tagnay city-ga loo wacay city-ga meesha imaaday waxa la dacweynayay community-ga Soomaalida la isugu yaray iskuulka waa la yaqaan America dadka jooga hub center la yiraahdaa waa la isugu yaray waa la yimid Soomaalida joogto gaalada joogto dadkii oo city-gii madaxda ka ahayd joogto iskuulka madaxdoodii joogto waxaana la dacweynayay waxay ahayd Soomaalida maxay musqusha biyaha ugu shubaan okay Ethiopiana nacaayeen Caraba nacaysay gaaladiya nacaysay aniga markii waxaan gacanta taagtay waan istaagay waxaan gacanta u taagtay ma u baahan inaan af Soomaali ku hadlo nin iiga turjumo aniga afkayga ku hadlaay oo aan dhahay horta dhageystaan dhahay idinka su'aalihiina intaan u jawaabin ka hor aan dhahay gabadhan Ethiopianka ahaan dhahay waxay u baahan tahay afkeeda oo markay hadlayso xaarka amal u soo uraayo inay horta hore xirto wayna edeb iyo akhlaaq xun tahaan dhahay idinkana waa dhageysanaysiin aan markay anaga culture-keena iyo aynaysaan dhahay
iyada culturekeeda waxaa waayaan dhahay naagta inay guriga horteeda ay ku xaarto ku kaadiso iyadoon iska dhaqin oo iska tirtirina guriga ay gasho ninkeedana ay la seexato anaga waxaas wasaq ayaa u naqaana wasaq oo uraayo wax anagana diinteena iyo dhaqankeena nadaafad ayay ku salaysan tahay gabdhahaas oo carabtaan dhahay ma kala saar gabdhahaas carabtaan dhahay wiil kale carab way jooga laakiin gabdhaha oo hadlaay labadaas gabdhood oo carabtahan dhahan u jawaabahan dhahay gaysaan dhahay waxaa laga yaabaa anigii adiga inaan isku culture aan ahaynaan dhahay laakiin aan dhahay diintaada waxay ku faraysahan dhahay inaad kaadida iska dhaqdid xaarkan iska dhaqdid oo aad cadaab ku butaysanaysid haddaa iska dhaqi weysid aan dhahay so you don't have to even talk about aan dhahay Somali culture aan dhahay you better zip your mouth aan dhahay aamusnaya waa ka soo jeestay iigaan soo jeestay waxaan idhigeysaan dhahay anaga United States aan dhahay baryoto ma ku imaanin waana la keenayaan dhahay culture-keena iyo diinteena mana la dhihin culture-kiina iyo diintiina waa iska dhigaysiina intaa imaanaysiin xaalka miska dhaqaysiin kaadana miska dhaqaysiin anaga meeshaan imaana culture-keena iyo diinteena aan heesanayaan dhahay xitaa sanadkan u sheegay aniga aan imaaday and waxaan nobody can change aan dhahay my culture and my religion aan dhahay because labadaas culture-kayga iyo religion-kayga waxaan u arkaaba inay yihiinba labada adduunyada ugu nadaafada badan leh ugu quruxda badan leh ugu udgoonka badan leh because diinteedan waxay leedahay isnadiifi iscaafi dadkii soo urin waxaan idinka isku sheegalaysiin xaarkiya soo ka xarisin waa soo kaadinaysiin xaashad iska marinaysiin taxaashadii meesha marisa xaarkii meesha uu ku hara xaarka markuu meesha uu ku harana dan hadhood waxa u baahan tahay urkaas inaad ka nadiifiso ma ka nadiifin karta surwaalkaada gashatay waa soo baxdo waa soo ag fadhiisatay xaarkaaga soo uraayo aniga dawaqisay marka horta taasi waxa waaye hadii lagu yiraahdo nimanka Soomaalida way uraan yani qofta kelmadahaas ku hadasha aniga ma arkin laakiin iyagoo laga hadlayaan arkay laakiin qoftaas waa qof aan waxba ka ogeyn qofta ma kartay inay ku ayso yani waxaadan ahayn ay ka dhigay waxaadan ahayn ayay kugu tilmaamaysaa nimanka Soomaaliyeed way rumeystaan nimankan ajaanibta ma rumeystaan goormay rumeystaan ma rumeystaan filmaantooda xitaa markaa fiirsanayso u fiirso iyagoo hurdaayo raashin kilo keena raashinkay cunaya suke sariirta korkeeda lagu cuno ma la rumeysto goormeel rumeysana ma taqaanaa oo maanta gabar Soomaaliyeed soo arkay ama gabar kale soo arkay maanta dheedan u socda afkayga ura waa la rumeysana ilkaha dhexdooda aw saqada laga bixbixina suusan u urin dawaa lagu dhaqdhaqa halmada ku sheega marka halmada ku sheega so kala ka qabyane geela bof lagu siina markii nalka loo soo dhow yahay ilaa nalkii la shukansanayo afkiir haduu ku dhaho bisoo ma darbaaxa waxa waayna dash lagu siiyano si afkii u soo carfa xabado xanjana afka la iska soo gashana laakiin ninka Soomaaliga shanta waqti uu dukanayo ayuu rumeystaa xitaa haduu taaruk salaad yahay wuxuu sameeyaa oo dhaqankiisa ay tahay habeenkii intuu seexana wuu rumeystaa subaxdii markuu ka soo kacana wuu rumeystaa taasi waa go tan labaad oo ruuxa bini'aadanka jismigiisa uu ku soo uray oo bacteria uu ku galayo aan ku sheega ruuxa inuu soo qubaysan ragana Soomaali before ay seexdaan way qubaysan subaxdii way qubaysan shaqo aadaan way qubaysan iskuul ay aadaan way qubaystaan because iyagoo na qubaysan shaqadii ma aadi karaan iskuulkiina ma aadi karaan waa inay qubaysan isnadiifiyaan mujada laakiin ninka ama naagta gaalada ma qubaystaan shukumaanay soo qaadanayaan shukumaan markay soo qaataan biyo ay ku shubayaan kilkilaha la iska marina iyo awrada geedka deodorantaha kilkilaha la marsana mid oo deodoranta lagu buufiya jirto hoos iyo futada isaga buufinaya bool biraal soo qaada la iska marmarsana waa la baxay there you go ninkan aad arkaysid cadaan weynaha naagtan aad arkaysid cadaan weynayda xaarkina kama dhaqna kaadida kama dhaqna mana ay soo qubaysaneen waxaan xasuustaa maalin waxaan ka qalin jibiyay maxaa la dhahay ii sheegay mar hore ahayd waxaan qaatay citizenka markaan qaatay macalimadeydii aniga oo galaaska citizenka ibareysay congratulation ee dhahday haga isiisa samare ahayd anigana hagaan simoogtay gacanteeda saasaan dhahay saasaan dhajaq waa soo kacaysaan la iska dhahay mar alla markaan kala foqonay musqushaan galay
hal saacan gacmahayga dhaqaa iyo wejigeedaba ma gaarin laakiin adooraha ka soo baxay sinyaca ka soo kacayo you cannot imagine ma fahantay okay taasi waxay tahay stepkii labaad waan ka soo hadalna ruubanaygi waan ka soo hadalna qubeyskii saxarada dadkan hadday xaaraan kaashaana maba iska dhaqaanba soo marka ninka ajaanibka u nadaafad badan yahay oo u carfaa ninka Soomaaligana u ura antaas ma ii sheegay okay iyadoo saas jirto dadka maadaama sida sheegtay bas ka dhaqan wax walba see marka loo babar dhigi karaa nimanka Soomaalida marka niman sidaas ah haddana mid kale oo ku sheegay waxay tahay dadka Soomaalida waxay aaminsan cadaanka inay nadaafad بديه واحد أنت عدان كعذره مقدعه نظافته ضبط صومالي وحير كان يسكت عنايا وحير كان يعبايا مركو حيالها سو كله محاك لا إذا أوكي هرت النظافة الديلي يرهضو جوري واحد ديلي يرهضو هديلي يرهضو بني آدم أهان هيومن بين أهان وإحنا جنا نظافة بدنا أنا جم جرتو كمباني هذا أمريكا يونايتد ستيت كمباني جا هادو جوري وبنايا روح صوماليات وأبل جريستو محل روح قالك مصيين عيان والله وحن حسوسة حافظ عند جنان جرني كمباني جا نينا إنه يمد أو عصب أو معمول كهاي حافيسك أيوه سميه جوري بنانا هذا قالوا قلي مركز حافظ يتنمد وحين قطي meel laga kala carro Soomaaliyeed oo ka kala cartay anagoo dhehna tolo ma guurtaan aaninkii loo yeeray waxa la yiri yaa ku yiri dadkan daji dadkan dadku wadanku u dhasho nobel yiri ma daji kartid al yiri Soomaaliya ugu timaada al yiri waa inaa Soomaali dajisa hal yiri Soomaalidu waa laga yaabaa inay darbiga hoolaan waa laga yaabaa inay jajabiyaan waxaasna waa caruurta ilaa anaga guryahan deganahay guryo safiite ah waay laakiin dadkan way uurihayaan maba nadiifiyaanba guriga dhexdiisa isaga kaadihayaan guriga dhexdiisa daran ku xaarayaan intooda badan bambaray xirtaan bambarka ilmaha markano ay bi xirtaanbo marka dhulkii lagu xaara waa lagu kaajana oo accident waa iiga fakadaa lagu yiri baadi ka hadal hee adiga naaga iskoolka isla joogtaan say isku ruuxaysa kaadida ma ka timid aniga marka wuxuu kaadimo waxaan la maxaka naagta maxaa suraalkeeda sii qoynay way ardo musqushay gashay hadhowdii ay soo noqotay suraalkeedii ay soo dhaqdhaqday markaas ay tiri maanta kutay maxaa la ii sheeg kaadiya ay soo fakatay I was like hada anigan waaba isku yaxyaxabo Soomaalida cunugooda gaaro 3 sano hadoo isku kaadiya habeenkii subaxdii waxa cunugaas waa balacnaan bent marka waxaan ku sheegaa adigoo nadaafsan adigoo qurux badan ayaa lagu caynaa wax walba laga sheegaa adi taas maxaa karta ana qof wax soo baray oo aniga aan soo baray aniga wax barasho la'aan igu cays aqoon xumo igu caysay ana macallin fiiri qabiilkii aniga aan ahay ee inay sheegatay waxay tiri bariiro waa sheegato yani saasoo kala ka soo qaadaysaa dadka iska caytamay saasa ka soo qaadaysaa laakiin waa ka hadal miimada dadka hadalkaas inay ku qanacayna rajeyna oo bariira maadaama ay tiri anaaba arkibo xaaladda kaas anaaba marag iyo marqaatiga ay dambada ka soo kaarina ilaa hadda macna had Soomaalida aniga waxa dhan moogta Soomaalida hay way ma laga hadli karo gaalada macna Soomaalida macna gaal Soomaali ma gaar amal Soomaaliga qaldan way macna Soomaalideena قالت مقارنة ما في صومالي يقدسنا وفتواه أنا كواحد شيء أنا مكسر والله معنا حد على المقطع قالت معنا صومالي ذا في عن صومالي ذا وحواي نمبر 1 حق نظافته نمبر 1 هذا المقطع أوكي marka adeedo ma isticmaaltina inta video hada inta soo gaartay waa ma santahay video no la grey no share grey bariran de subscribe saara bari like subscribe way kina ragtay like and subscribe saara idana u saarate waxa la 200 subscribe ka badan ay gaarto maadaama hada 200 ay u dhawdahay midda kalena hada video labadan video wana like no saarta maadaama labada youtube la soo dhigayo adeedo